haddii maskaxda aadamuhu ay kombiyuutar aan lahayd waxay furin kari lahayd 38 oo trilyan oo howlgal halkii ilbiriqsiba. kombiyuutarka ugu awoodda badan dunida ee loo yaqaano blue chain wuxuu maamuli karaa eber 2% xogtaas ah. maskaxda aadamuhu 2% ayay ka tahay jirka ibni aadamka. culayskeedu waa 1 kiilo iyo badh. waxay ka kooban tahay 100 bilyan oo dareemayaal ah. sidoo kale samayskeeda guud 75% waa biyo. sanadka koowaad ilmaha maskaxdiisu 3 jeer intii ay ahayd in leeg ayay kortaa. ilaa qofku uu 18 sano ka soo gaadho korriinku waa ay wadaa maskaxdeenu. riyooyinka waxaa la rumaysan yahay inay yihiin isku dhafka mala awaal, arrimo jir ahaaneed iyo qodobo neerfayaasha la xidhiidha. waa astaan muujinaysa in maskaxdaadu ay u shaqaynayso si ka badan marka aad soo jeedo. waxayna ka turjumaysaa xitaa marka aad hurdo in maskaxdaadu shaqaynayso. maskaxdu waa xubinta ugu duxda badan jirka aadamaha. 60% waa dux maskaxdeenna. maskaxdu marnaba xanuun ma dareento gudaheeda inta la og yahay sida xubnaha kale u dareemaan xanuun iyadu uma dareento. madax xanuunku waa xanuun ay dareemaan murqaha iyo neerfayaasha madaxa ku jira. taasi waa sababta marka la samaynayo qalliimada maskaxda loo fuliyo isagoo qofku soo jeeda. markasta oo aad weynaato maskaxdaadu waa ay sii yaraanaysaa. sidoo kale waxaa la xusaa qofku markuu soo gaadho da'da 20meeyada inuu bilaabo luminta kaydka xasuusihiisii hore. ogsajiinta iyo dhiigga jirku isticmaalo 20% waxa qaadata maskaxda. maskaxdu waa xubinta ugu muhiimsan jirka ibni aadamka. sidoo kale waxaa la xusaa in gudaheeda xididada dhiigga ee dhex mara dhererkooda guud gaadhayo 100,000 oo mayl. guud ahaan masaafada dhulka ee labada cidhif ee dhulbadhaha taga waa 24,000 oo mayl. 4 jeer ayay xididadaasi ka dheer yihiin kuwa dhulka. celcelis ahaan 70,000 oo fikradood ayuu qofku sameeyaa maalinkii oo ay maskaxdu soo saartaa. cilmi baadhistu waxay intaas ku daraysaa in maskaxda ninku ay ka weyn tahay haweenka 10%. sidoo kale waxa ay muujinaysaa in maskaxda dumarku ka dareemayaal badan tahay tan ragga, taasoo u sahlaysa inay si dhaqsaa shaqada u qabato maskaxdoodu. marka aynu aragno sawirro waxay indhaheennu qabtaan sawirrada oo gedisan ama rogan. durbadiiba maskaxda ayaa toosisa oo sawir caadiya ka dhigta. qofku marka uu hurdada ka soo kaco maskaxdiisu waxa ay leedahay awood ay dab ku siin karto ama ku shidi karto laambadaha ilayska. cuntooyinka badda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee faa'iido u leh maskaxda. aysiidha iyo duxda ku jirta ayaa maskaxda ka saacida inay si wacan u shaqayso, xasuuso badanna soo celiso, halka khamrigu uu yahay cadowga ugu weyn ee maskaxda dareemayaasheeda kala furfura una geysta dhaawac. haddii dhiigga maskaxda tagaa oo hal mar istaago muddo 10 ilbiriqsi ka yar ayuu qofku ku miir daboolmi karaa ama kooma ku geli karaa. sidoo kale qofku marka uu dhinto maskaxdiisu muddo 5 ilaa 6 daqiiqo ah ayay sii jiri kartaa.